بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. haddii aynu ka warannay waxyaabaha ka jira galbeedka iyo dadka Soomaaliyeed ku soo biiray iyo waxa la kulmay iyo taariikhda bini aadamku waxa ay ka tilmaamtay noolaha kala gedisan nolosha kala aragtida kale markay kulmaan waxyaabaha ka dhaxdhaca waxaynu isweydiinaynay oo jawaab u raadinaynay sidee bay u suurtagal tahay dadyowga Soomaaliyeed ee wadannada galbeedka adegani inay dhaqankoodii Soomaalinimadoodii diintoodii dadnimadoodii ay ilaashadaan iyagoo wali degan wadannadaasi galbeedka waxaan leenahay xalka koowaad wuxuu ku jira in la helo waxaynu ku tilmaami karno tawxiid saf midnimo ama iskaashi iyo midow iyo wax wada qabsi waxaynu arkarnaa inay tahay xalkii uu nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ku tijaabiyay ummadii muslimiinta koowaad ee hijrootay ee magaalada Madiina tagtay waxa uu tijaabiyay inuu dadka muslimiinta ah walaaleeyo si ay u noqon karaan bulsho la nool ama ku dhex nool ama la noolaato dad kale oo ka caqiido iyo diin gadisan waxaynu oran karnaa galbeedka haddii aynu nidhi fursadaha yaala oo fursadaha yaala waa fursado qaanuuniya waxa yaala qaanuun dadkii wadankan lahaa ee ugu tala galeen inay ummadooda ku kala hagtaan qaanuunkaasi wuxuu siinayaa qof kasta oo wadankaasi sharci ku loo degan oo ku nool qaab uu noolaado iyo qaab uu xuquuqdiisa ugu doodi karo laakiin nidaamada dimuqraadiga inta badan waxa doodi kara ee wax iska dhicin kara ee xuquuqdooda ilaashan kara waa dad urursan oo ahdaaf iyo aragti ku urursan fursadda ha lagu siiyo laakiin fursaddu waxay yidhaahdaan najaaxa guushu waa fursad iyo diyaargarow la isku dara bay yidhaahdaan ayaa guul la yidhaahdaa haddaad fursadda hayso laakiin aad adigu diyaar ahayn guul gaadhi maysid haddaad adigu diyaartay laakiin aad fursaddu meesha oolina guul heli maysid bay yidhahdaan guushu bay yidhaahdaan waa labadaasoo la isku daray galbeedka fursad baa taalla dadka raba in ay wax qabsadaan ay wax qabsan karaan laakiin waa iyagoo urursan oo dad midaysana afka Soomaaliyeedna mahmaahiisa waxa ka mid ah far kaliya fool ma dhaqdo yacni wajiga far laguma maydhi karo ee shan farood baa maydha sidoo kale waxaynu leenahay cid kasta oo wadanadan ku nooli waxaa ka jira ururo bulsheedyo aad u tirada badan leh ururada dhakhaatiirta kuwa macallimiinta kuwa yacni urur waliba xuquuqdii uu qaanuunka iyo wadanka iyo dhaqanka dowladnimo ee ka jira ay u ogolaayeen buu ilaashadaa inagu haddaynu Soomaali nahay waxaynu u baahannahay inaynu heli karno dhul Islamic centers ah ama maraakiis islaamiya oo midayn kara ummadda ku hadasha afka Soomaaliyeed oo ilaalin kara dhaqanka ama hidaha ama identity-ga ama aqoonsiga uu leeyahay qofka Soomaaliyeed oo ugu horeysa diintiisa iyo luqadiisa yani dadka Soomaaliyeed ee wadanada tan yimi meeshu doonaba ha ka yimaado waa dad baynu nidhi aan cid ka soo horeysay oo wax u meel dhigtay aanay jirin laakiin ummad kasta oo is ururisa oo midowda waxbay qaban kartaa waxa ugu badan aynu u baahanay markaa wuxuu yahay dadka galbeedka degan leh inay dad midoobi kara noqon karaan dadkaasi galbeedka degan leh marka aan ka hadlayo kama hadlayo gobol ka mid ah gobolladii Soomaaliya dadkii ka yimi wadan ka mid ah wadanada Soomaalidu ay leedahay waxaan ka hadlayaa ummadda afka Soomaaliga ku hadasho dhan ha ka yimaado Kenya ha ka yimaado Ethiopia ha ka yimaado Djibouti ha ka yimaado wadankii hore loo wada oran jiray Soomaaliya marka aan taa tilmaamayo waxaan uga jeedaa halka kan midnimada way ku qasban yihiin iyadoo laga yaabo inay wadankoodii markay joogeen isa soo dileen
iyagoo laga yaabo afkaarta siyaasiga ee maanta ay rumaysan yihiin ee ku aadan waddankii inay ku kala gedisan yihiin iyadoo laga yaabo waxyaabahay Soomaalidu isku kala sooci jirtay tirada badan leh inay ku kala soocan yihiin laakiin halkan marka ay joogaan waxay ku qasban yihiin waxyaabo badan waxay ku qasban yihiin waa dad doon qura wada saaran af qura ku wada hadla dhaqan qura wada matala diin qura wada haysta la nool bulsho ka tiro badan leh oo dhaqan iyo diin iyo caqiido iyo afba kaga gedisan taasi waxay dhici kartaa markaasi marka ay ummadda tani garato inay midowdo midowgaan ka warramaya halka kani maaha midowgii siyaasiga ahaa ee waddan Soomaaliyeed si wax loogu qabto ama ummad Soomaaliyeed si loo dhiso waa midow ku salaysan warsaynu u badbaadi karnaa inaan u hafanin dadka halkan jooga dana gaara ka dhaxaysa sideedaba horta midnimadu marka koowaad waa qiimo xadaariya unity-gu waa qiimo ilbaxnimadu ay si fiican u muujiso ama u xoojiso kala daadsanidu waa qiimo runtii reer baadiyenimo ama se dib u dhacnimo haddaan si kale u tilmaamo maanta caalamku mar kasta oo dadka meel ku nool ay sii midoobaan mar kasta oo xataa dadku sii tiro bato waxaa sii tiro bato horukaca iyo waxqabadka ay ummaduhu leeyihiin sida awgeed haddii dadku midoobo waxaa dhici karta inay wax badan wada qabsan karaan kooda wadaadka kooda jabhadka kooda aqoon-yahanka ku kastaaba wuxuu u baahan yahay ba halkan jiro inuu ka midoobi karno qof waliba wuxuu u baahan yahay ilmihiisu inuu toosnaado qof waliba wuxuu u baahan yahay ilmihiisu inuu muslim noqdo qof waliba wuxuu u baahan yahay ilmihiisu inuu afkiisii hooyo ku hadli karo oo Soomaali noqon karo qof waliba wuxuu u baahan yahay reerkiisu inuu isku xidhnaan karo ama guri fiican inuu yeelan karo sida ogeed waxaan leeyahay midnimadu waxaynu ku qasbannay xalka koowaad marka waa midnimo laakiin wax kasta oo xal oo la tilmaamo carqalada hor ka taagan baa jira oo u baahan in wax laga qabto carqaladaha hor taagan waxaan ku tilmaami karaa inuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku tababaran waxa loo yaqaano organizationska ama ururnimada bini'aadamku hadduu wax isku darsado dhacdhac tiro badan baa yimaada waa isku xadgudbi karaa laakiin dadku qaab uu xada yeelan karaa jira ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay wa inna kathiran min al-khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd dadka wax isku darsada in badan oo kamid ah isku xadgudubta waxa dadku inay isku xadgudbaan ilaalin karaa waxa weeyaan midnimadu inay albaabka ilaahay laga soo galo oo ah inuu jiro system wax la isugu darsan karaa inuu jiro idaara ama maamul lagu wada qanacsanaan karaa maamulkan ka warramaya maaha ashkhaasta waa maamulku waa qaab dhismeedka waxa kan uu leeyahay waa job descriptionka ama shaqada uu qaban doono waxa laga yaabaa inaynan ku heshiininba aragtideena maanta ku saabsan siyaasadda Soomaaliya ka socota iyo qaabka inuu laakiin waxaynu heshiis ku wadanahay inaan cidina degin oo lumin dadkeena halkan jooga idan shaqada ah inaynan kala lumin ilmaheenu badbaado haweenaydeenu badbaado odaygeenu badbaado ilmuhu iskuul fiican u helo waxbarashadiisa laga caawin karo odaygu meel fiican u heli karo meel uu ku nasto heli karo meel uu ka shaqeeyo heli karo meel uu ku tukado heli karo taasi waa baahi aynu dhammaanteen wada qabno baahidaasi waxa qaban kara baynu leenahay ururo aynu samaysano siiba waxa qaban kara ururada ah Islamic centerska meel qofka muslimkii uu ka heli karo waxa aynu tilmaami karno oo dhan bashar kasta oo meel isugu yimaadaana xagxagasha waa dhex mari kartaa waxyaabaha qaarkood waa ku murmi karaan laakiin xalku maaha sida Soomaalidu tiraahdo ina kala saara waxaan leeyahay xalku wuxuu yahay in dadku midoobo oo ku midoobo meelahaasi uu u baahan yahay oo ururin kara markaasi danaha badan ee aynu leenahay waxa ugu horeeya baan leeyahay meelahaas aynu ku midoobi karno maraakista islaamiga oo aynu ka dhigno maraakis dadka oo dhan ka dhaxaysa ma aha maraakis koox yar oo ama afkaar gaar ah isku raacsisan ama aragti gaar ah wada qabta ay leedahay waynu noqdaa markas islaamiya oo ummada muslimiinta meesha ku nool wada leeyiin
cibaadadooda ku wada gudan karaan danahooda islaamiga u wada qaban kara baahiyahooda bulsheedna fulin kara ama ka caawin kara saa awgeed baan waxaan u tilmaamayaa midnimadu meelaha ay ka unkami karto waxaa ka mid ah in la helo maraakistaasi islaamiga oo u taagnaan kara inay xubnaha Soomaaliyeed ee kala gedisan ururin karaan midayn karaan hayn karaan wixii ay u baahnaayeen u ilaalin karaan oo ugu horeeyo identity-gooda inay ilaaliyaan waxyaabaha aadka aan uga naxo ee galbeedka sii lumaya waxaa ka mid ah afka Soomaaliga waxaan u arkaa inuu yahay waxa koowaad ee dhaxalgalka ee ummadda Soomaaliyeed ay haysato waa waxa isku xidha qofka Soomaaliga ee dabadda jooga iyo qofka Soomaaliga ee wadankii ku nool hadduu afku lumo xidhiidhka labada qof ka dhaxeeya walow qaraabanimo sokeeyana ha yeeshaane uu lumaya afka Soomaaliga waa af sida dhaqan diimeed wuxuu ka soo jeedaa waa af dad muslimiin ay leeyihiin sida ogeed wuxuu sidaa dhaqan dhan oo diin ah oo ka soo jeeda diinta islaamiga sida ogeed waxaan u arkayaa maraakistaas islaamigii inay ilaaliyaan kow identity-ga diimeed ee qofku uu leeyahay caqiidada inay ilaaliyaan luqada qofka Soomaaliga uu leeyahay inay ilaaliyaan dadnimada ama dhaqanka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed dhammaanteed oo dhan waxa koowaad aan u arko markaasi in galbeedka laga helaa waxa weeyaan waa midnimo ku salaysan islaamnimadeennii iyo Soomaalinimadeennii matali karaan maraakista islaamiga ahi oo loo diyaariyo inay xambaari karaan bulshada weyn ee Soomaaliyeed ee ka timi Kenya laga bilaabo ilaa Djibouti inta laga gaadhayo dadka u dhaxeeya ka yimi dadkii dantooda xambaari kala lahaa inuu noqdo xalka labaad waxaynu kaga hadli doonaa fadhigeena dambe